السلام الله عليكم dhegeystayaal subax wanaagsan halkani waa idaacada Afrika magaalada Muqdisho ku soo dhawaada qodobadeena wararkeena subaxnimo kooda ugu weyn saaka aad ku maqli doontaan dhegeystayaal waxa ka mid noqonaya taliyaha ciidanka booliska oo ciidamada ku amray in shacabka ay ula dhaqmaan si wanaagsan maxkamadda sare ee Mareykanka oo soo saartay go'aamo ka dhan ah Soomaaliya al-shabaab oo weerar ku qaaday goobo ay ku sugan yihiin ciidamada Kenya madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo amar ka soo saaray boobka dhulka deegaanada maamulka Puntland maamulka Hirshabelle oo sare u kacay caabuqa cudurka COVID-19 taliska qaybta 6aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo ku dhawaaqay howlgallo ka dhan ah xarakada al-shabaab akhbaaraadka dibadda warkeena subax saaka aad ku maqli doontaan dhageystayaal waxaa ka mid noqonaya hogaamiyaha Boko Haram oo faahfaahin ka soo baxaysa qaabkii uu u dhintay baraanka ku taagan yahay awow aamus waxaan dhageysanayaa war ka baxaya radio Afrika idaacada Afrika kula dhageysta ka fur adeer albaabka ha dhageysta warka idaacada adeer kale idaacada la dhageysta intaasi dhageystayaal aad maqlayseen waxa ahaayeen qodobadeennii ugu waaweynaa saakay waa subaxnimo talaada taariikhduna waxa ay ku beegan tahay 8 bisha Juun ee 2021 ku soo dhawaadaya iyo faahfaahsan taliyaha ciidanka booliska dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ciidanka dowladda ee booliska Soomaaliya uga digay in ay dhibaateeyaan shacabka ku dhaqan gobolka Banaadir xilli muddooyinkii ugu dambeeyay shacabka ku dhaqan gobolka Banaadir ay ka cabanayeen ciidanka booliska Soomaaliya ayaa taliyaha ciidanka booliska dowladda federaalka Soomaaliya waxa uu u digay ciidanka booliska in ay shacabka ula dhaqmaan si wanaagsan maadaama maalmihii ugu dambeeyay eedeyn badan ay ugu iimaanaysay shacabka ku dhaqan gobolka Banaadir taliyaha ayaa waxa uu sheegay ama ka codsada shacabka inay la shaqeeyaan ciidanka booliska Soomaaliya si la iska wada kaashado ammaanka guud ee dalka ciidanka booliska Soomaaliyeed meel kasta uu joogo waxaan amrayaa inay shacabka ay wakiilka ka yihiin si wanaagsan ula dhaqmaan suuqa kontaroolada checkpointyaasha saldhigyada suuqyada waaweyn laamiyada booliisku wuxuu u yahay ilaaliyaha shacabka ma doonayno in shacab ama qof ama labo magaaladan dad badan baa ku dhaqan noocyo badan leh tiradeedu aad u badan tahay wax walba waa la maqlayaa laakiin amarka booliisku uu qabo kuna shaqeeyo aadna ka aragteen waxa weeye booliisku inuu naxariisto ilmaha yaryar ee laamiga goynaya booliisku inuu naxariisto odayaasha iyo islaamaha wadada goynaya booliisku inuu naxariisto dumarka suuqa wax ku gadanaya hadalka taliska ciidanka booliska Soomaaliya ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli cabashooyin badan ay muujinayeen shacabka ku dhaqan gobolka Banaadir kuwaas oo ay ka cabanayeen ciidanka booliska dowladda Soomaaliya kadib markii ay sheegeen in xadgudubyo ay kala kulmaan al-shabaab ayaa weerar waxa ay ku qaadeen goobo ay ku sugnaayeen ciidamada Kenya xubno la sheegay in ay ka mid yihiin xarakada al-shabaab ayaa weerar ku qaaday goob ay ku sugnaayeen ciidamo ka mid ah booliska dowladda Kenya oo ku taala deegaanka waqooyi ka xigta magaalada Mandera ee gobolka waqooyi bari dalkaasi Kenya saraakiil ka tirsan booliska Kenya ayaa waxa ay sheegeen in al-shabaab ay ku soo weerareen boosteejo basaska laga raaco oo ku taala tuulada Olala ee duleedka magaalada Mandera waxaana halkaa ka dhacay dagaal u dhaxeeya booliska Kenya oo baska ilaala ka hayay al-shabaab wararka la helaya ayaa sheegaya in dagaalkan ka dhacay tuulada Olala oo ay ku dhinteen ama uu ku dhintay imaam masjid oo lagu magacaabi jiray Imaam Maalin Cabdullaahi halka ay ku dhaawacmeen laba ka mid ah askarta booliska dalka Kenya al-shabaab ayaa dhankooda weerarkan ka hadlay ayaa sheegay in ay dileen 3 askari sidoo kalena ay furteen ilaa 5 qori isla markaana muddo kooban ay la wareegeen deegaanka Ola oo waqooyi ka xigta magaalada Mandera al-shabaab ayaa dhowr jeer waxa ay weerar kala duwan ka fuliyeen deegaano ka mid ah gobolka waqooyi bari waxaana dowladda Kenya ay sheegtay in ay ka hortagayso weerarkaasi hase yeeshee ay weli yihiin kuwa ka sii socda gudaha dalka Kenya
madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani ayaa waxa uu ka digay dhulal boobka lagu wada deegaanada maamulka Puntland xilli muddooyinkii u dambeeyay deegaanada maamulka Puntland ay ka taagneed isaga qabsi u dhaxeeya dhulka danta guud ee deegaanada maamulka Puntland madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdulaahi Dani ayaa u digay dadka inta badan dhulka xooga ku qabsaday isagoo faray laamaha amniga iyo hay'adaha garsoorka in dadkii lagu helo dhul boob la marsiiyo sharciga madaxweynaha Puntland ayaa muujiyay muhiimadda ay leedahay in mustaqbalka magaalada Garowe loo diyaariyo mid horumarsan oo qurux badan dhinaca dhismaha iyo waliba dhinaca kaste wuxuuna ku baaqay dawladda iyo shacabka intaasi laga wada shaqeeyo dadka dambiyada hubaysan oo abaabulan u galaya dhulalka inay sii fuliyaan dambiyo kale oo kuwa ka badan marka ay lacag aan qorshaysnayn helaan waxaad ogtihiin waxaa badanaya drugski waxaa badanaya fasaadka kale waxaa badanaya dambiyada iyo dilalka marka waxaan u baahannahay arrimaha noocaasa in aan ka hortagno waxaan rajaynayaa inaan waqti badan anigu aan qaadan marka hore inaan dhageysano degmada iyo qorshaheeda sida ay u sameynayso master plankeeda si ugu tala gashay magaaladan waxaan ka rabnaa xarumo dawladeed iyo xarumo caam ah hadalka madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani ayaa ku soo aadaya xilli madaxweynaha uu ka qayb galay daafurka barnaamijka qorsheynta dhulka caasimadda Garowe maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa waxa ay soo saartay go'aamo ka dhan ah Soomaalida ku nool dalkaasi maxkamadda ugu sareysa dalka Mareykanka ayaa soo saartay go'aano dad badan oo soo galooti ah dalka Mareykanka ay ku sugan yihiin madaxda dalkaasi maxkamadda ayaa go'aan ka soo saartay in sharciga deganaanshaha loo yaqaan kaarka ama green kaarka aan loo ogolaanin qof haysta waxa loo yaqaan sharci ku meel gaar ah amba temporary protected haddii uu qofku si sharci dara ah dalka u soo galo markii uu isdhiibo ama uu codsi deganaansho dalkaasi codsado go'aankan ka soo baxay maxkamadda Mareykanka ugu sareysa ayaa dhabarjab ku ah dad badan oo Soomaaliyeed iyo qowmiyada kaleba oo soo galooti ah kuwaasi oo muddo ku sugan dalkaasi si sharci dara ah qareennada iyo sharciyaqaanada ayaa ku dhiiriyay qof kasta oo arrinkani saameyn ku leeyahay in lala xiriiro qofka u qareenka u ah si uga helaan wixii faahfaahin la xiriira go'aanka maxkamadda dalka Mareykanka ayaa waxaa ku nool Soomaali aad u fara badan kuwaas oo qaarkood haysta sharci rasmi ah halka qaar ay si sharci dara ah ku joogaan iyagoo go'aanka ka soo baxay maxkamadda uu saameyn ku yeelan doono Soomaalida ku nool dalka Mareykanka halka warkaasi dhageystayaal saaka aad ka dhageysanaysaan waa idaacadda Afrika magaalada Muqdisho iminkana qodobada dibadda Suudaan ayaa waxa ay sheegtay in Itoobiya ay kala wareegtay dhul halka ku yaala Suudaan iyo Itoobiya ayuu dagaal goos-goos ah ku dhaxmaraya tan iyo bishii November ee sanadkii hore iyagoo xiisadoodu sii xumaanayso marar badan oo la isku dayay in la dhaxdhaxaadiyo labada dawladood maleeshiyaadka Amxaarada ayaa inta badan iska caabin kala hortaga ciidamada Suudaan ee qabsaday deegaano badan sida ay sheegeen dadka ku nool deegaanka beeraha ku habboon ee Al-Fashqa Suudaan iyo Itoobiya oo isku haysta dhul beereed Al-Fashqa ayaa Suudaan sheegtay in 90% qabsatay dhulkii muranka ka taagnaa balse Itoobiya ayaa arrinkani duulaan cad ku tilmaamtay dagaaladan oo la sheegay in ay maanta iyo shalay dhaxmareen maleeshiyaadka Amxaarada oo ay taageerayaan ciidamada Itoobiya ayay militariga Suudaan sheegeen in dhowr aag oo hor leh ay kala wareegeen ciidanka Itoobiya guud ahaan warkii oo aad ka dhageysanayseen idaacadda Afrika magaalada Muqdisho dhageystayaal waa nageynta idina waad ku mahadsantihiin dhageysiga la socodka warka iyaga subaxnimo
horseed watch and optical horseed watch and optical daraariba waa dharaar dhacdaba waa maalinta taariikhduna waa dhigaal bulshooy dhambaal baan ku sidaa dhagaha furo oo maqal dhambaalka noo sidaa hadii uu dhaxalgal yahay dhagaha waan ku furnay dibcaha basiro bal sheeg war ruux dhaaya beelayo ka dhaawacan aragtidiyo dhagoolaha aan wax maqal sankiyo dhuuntiyo cunaha dhibaato qofkii ka qaba dhaqaatiir u gaar ah Allah